wasiirka umuuraha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ee Soomaaliland Maxamed Biixi Yunis oo hadda ku sugan dalka Koonfur Afrika ayaa ka qayb galay shirweynaha 25aad ee dhaqaalaha adduunka oo ay martigelisay dawladda Koonfur Afrika. Markii wasiir Maxamed Biixi Yunis gaaray magaalada Cape Town waxa si diiran u soo dhaweeyay mas'uuliyiinta dawladda Koonfur Afrika ee ku sugnayd madaarka uu wasiirku ka degay wakiilo ka socday Soomaaliland iyo bulshada qurba joogta reer Soomaaliland ee ku dhaqan dalka South Africa. Shirweynahan oo Arbacadii shalay si rasmi ah uga furmay magaalada Cape Town dalka South Africa ayaa waxa ka soo qayb galay in ka badan 1250 ergey oo isugu jira maalqabeeno, siyaasiyiin, aqoon-yahano, suxufiyiin, saraakiil sarsare oo ka socotay 75 wadan oo adduunka ah iyo sidoo kale ugu yaraan 83 shirkadood oo ah kuwa ugu waaweyn dunida. Ciwaanka shirka dhaqaalaha dunida ee sanadkan ayaa loo qaatay hadda iyo hadhow, waxaana diiradda lagu saari doonaa arrimaha dhaqan-dhaqaale, kuwa bulshada iyo xaaladda siyaasadeed ee qaaradda Afrika ee ay hadda ku sugan tahay iyo sidii looga hawlgeli lahaa horumar intaa ka badan oo Afrika ay gaadho. waxaana ugu horeyn lagu soo bandhigay horumarka dhaqaale ee qaaraddu ku tallaabsatay 25 sanadood ee ugu dambeeyay. kasoo qaybgalka wasiirka khaarijiga ee Soomaaliland oo si heer sare ah loogu qaabilay madasha shirka oo noqonaya mid ka mid ah saaxadaha ugu waaweyn ee lagaga doodayo dhaqaalaha qaaradda Afrika ee Soomaaliland ka muuqato. waxa uu fursad u yahay iskaashiga ay Soomaaliland la wadaagto wadamada qaaradda iyo dunida qaybaheeda kale. shirkan ayaa noqonaya kii ugu weynaa tan iyo markii shirweynihii ugu horeeyay lagu qabtay isla magaalada Cape Town ee wadanka Koonfur Afrika sanadkii 1990 waxaana uu socon doonaa ilaa 5 bishan June oo ku beegan maalinta berita ah. Nuruddin Abdullaahi Colijoog, telefishinka qaranka Soomaaliland, Hargeysa.